على يراهدا خليف magacaagu xaguu ku yaalaa xaguu ku yaalaa wuxuu ku yaalaa meeshu aniga iga yaal xagee kaaga yaal ka dhawarka kulanti wanaagsan tahay wadayaal ku soo dhawaada barnaamijkiisa weys iyo su'aalaha oo ah barnaamij toddobaadla ah bal bulshada toddobaadkan su'aalaha weydiin doono iyo qaabkay uga jawaabi doonaan nala daawada dhinaca kaamirada waa Cabdiweli Gallayr na soo raaca magacay Cabdisalaam Saciid maxaa jaamac la yiraahdaa waayo su'aashan u soo gudbayaa hadii aan ku dhaho magacaagu xagee ku jira magacaagu xagee ku yaala hadaan ku dhaho ka waran magacay wuxuu ku yaalaa meel wacan ku yaalaa wuxuu ku yaalaa noloshu ku yaalaa noloshu magaca wool up nigga wool up just wool up see noo fasir marka waa soo laabanaya waxaan gadgadaya magacayga waa Maxamed oo inaan su'aal ku weydiino soo aragtaa waa aad baan soo dhaweynaya waayo su'aashu waxay ku leedahay hooyo iyo aabe 9 ciyaar isku dhalay aan wali is arag sababtu maxay tahay hooyo iyo aabe 9 ciyaar isku dhalay aan wali is arag hooyo iyo aabe 9 ciyaar isku dhalay wali is arag sababtu maxay tahay aan wali is arag way dhinteen أقول شو دواء باي معك مقعي واحد لعدنا هالشيء عقال لنا باي وايه مقعي وحقوك يا مقعي هيك حقوك يا Hey y'all come look at this حقوق يلا هلكا شو يلا هلكا ومحا كاغا dhigay دباي ما ناقان هلكا شو يلا بالي وداhay magacaaga madaxa ku yaala madaxa ku yaala meel kale ma kugu meel madaxa ka sareysan ma jidho halkaas markuu ku halkaas inuu yaala xasiid cali maxamed oo hay xagaad ka timi baadiye baadiyalkaas figa magaceed hawd waaye bal miyiga maadaama dhawaan ka timi magaalada intee hadda joogtay jooga 4 bari kaliya marka magaalada maxaa kula yaabnaa inta joogtay inta joogay aadanka oo masaajid kaas ay gula yaab kubna marka maxaa marka maqashid oo salaada maxaa calashan maxaa uga yaabtay oo ugu yaabtay kuugu horeysay waa ku naxamay ano ag mariyaa la qeyriyay waa nacay marka taas ay gula yaab kubna maadaama aad miyi ka timi oo dhaqankii ku dambeysay maxay ahayd tooy waxaad noo sheegtaa geedka maxaa ku yiraahdaa shimbirka aan geedka fuulin وداوست عبدالساق حياة كتمي هاتشويا باكا ها إنا سؤال كودي سو أركتا ديار عدوي مناديل وضوء كوران هويو إي آبي 9 عيال isku dhalay sababta ilaa hadda isku akleeyeen burburka iyo qalalaasa weeye oo gobolka kale jooga soo koonfur iyo Puntland oo kale marka si caruur isugu dhaleen marba wada joogi jireen markaas isma arkaan waa saarka meelad arrimaha miyiga say isku tihiin miyiga xoolo dhaqashada xoolaha waa maariga macnaha la ilaalinayo sida baadiyaha laga dhaqanka baadiyaha guud ahaan dhaqanka miyiga xoolaha la ilaaliyaa waa la aroorshaa waa la xereystaa waa la maalaa magaalada intee hadda joogtay 5 sano marka 5 sano aad joogtay magaalada ma jira wax farqiyo u dhaxeeya magaalada iyo miyiga علشان wax magaalada aad macni kula yaabana inta magaalada timi magaalada intaan xiradaas aan joogay argaana ka shaqeeya wax kale oo hadeer aan meel aan u aado oo dheer ma jirto aadiya marka su'aasha maadaama aad tirmiyiga 5 sano ka hor baa igu dambeysay waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo ku saabsan marka waxa laga rabaa geedka shimbirka aan geedka fuulin waa geesaarka miyaa shimbirka geesaarka soo geed maaha shimbirka aan fuulin dhirta ma fuulo shimbirkaasi ma garanaya anigu geedka magacayga waxa la yiraahdaa Muuse Jaamac baa la yiraahdaa Muuse inaan su'aal ku weydiiyo soo aragtaa okay way wala isweydiin karaa su'aal muhiim haday tahay su'aasha koowaad waxay ku leedahay magacaagu xaguu ku yaal magacayga magacyada meesha ku yaal ku yaala xagee weeyaan meesha qalbiyadu ku yaala qalbiyada binaadamka dadka Do me a favor please
Get out of here. adiga magaca Muuse xagee kaaga qoray anigu waxa iga yeelaa heart wadnuga iga yeelaa oo yaa ku dhigay dadti ilaahay baa ku dhigay wax kaskana qoraal bay ku socdaan moogta oo kaas marka adiga magacaaga wuxuu wadnuhu kuugu qoray ha qalbigu igu yeelaa aniga su'aal kale aan ku weydiinayaa waxaad ii sheegtaa hooyo iyo aabe 9 ciyaar isku dhalay oo haddana aan is arag sababta isku arki waayeen aysan isku arag impossible way taas suurtagal maaha hooyo iyo aabe 9 qof oo ciyaar is dhalay oo haddana aan is arag waxa la dhigi karaa waa aamoole ama hooyada aan indhalahayn ama aabaha indhalahayn baash inaan su'aal ku weydiiyo soo aragtaa aad u fiican su'aashu waxay ku leedahay magacaaga xagee ku yaala magacayga anigu yaala magacayga xagee kaaga yaala waa dadka igu yarada magacayga maya xagee ku yaala marka yeerista ka sokow meel kuma yaalo baash laani magacaaga magacayga Axmed Xuseen Ibraahim baa la yiraahdaa ku waxa dhigeer farcade waaya inaan su'aal ku weydiiyo soo aragtaa baa si fiican baa ugu jawaabaya insha Allah waaya Axmed oo bal hadii lagu dhaho ka waran magacaaga xagee ku yaala magacayga xagee ku yaala wallahi anigu ugu yaala magacayga waa ka xagee kaaga yaala marka xagee qofka midhaantiisii way magaciisu ku yaala بدانتيسي وكا إذا الحاج عبد إذا أنا سؤالك ودي سو أركتها والله وأنا كخرع سنة هاي وايه إذا هدي له قدوة كورها مجا وحقوق يالا مجاعيجا دي حق الله وكيد مجاعيجا هاي هدواكا نوشك ما كمشوا كيمي دي حق يسوكيمي ما يمشوا كيالا لقاها oo de taamiyaan baa sheey kara te taa garan mayo haye adwaaka marka su'aal kale hadaan ku weydiiyo waxaad ii sheegaysaa aabe iyo hooyo 9 caruur isku dhalay oo wali aan is arag te taa waa dhibaato 9 caruur sababta isku arki leeyihiin bal iga wan 9 kana isku dhalay oo hadee hal wadan miyay wada joogaan mise laba wadan kulli 9 ciyaal isku dhaleen sababtana wali isma aysan arag hadda meesha daruufun baa jidha marka haye waa ka aad baan u dhawahay walaal waa ku dhawahay barnaamijka bal maanta maxay hayto dhowr bilood ka hor baad ka qayb qaadatay maanta su'aashu waxay ku leedahay magacaagu xaguu ku yaal magacaaga halku ku yaala aniga magacayga sharmaarka xaguu ku yaala wuxuu ku yaala de magacaygu ku yaala magacayga sharmaarku ku yaala xagee kaga yaal de magacayga laftirkiisu ku yaala see ugu yaala magacaagu xaguu ku yaala magacaygu magaca sharmaarku ku yaala haye de waa sidaa anu xaq kale anu ku xeeyo garan maayo de barnaamijkana midaan ka maqnaayo su'aal yaroo simbala baad nagu qaadaa maalin kasta marka su'aal kale ku weydiinaya su'aashu waxay ku leedahay hooyo iyo aabe 9 ciyaar isku dhalay walina aan is arag sababta isku arki waayeen maxay tahay hooyo iyo aabe 9 ciyaar isku dhalay haye mana is arag sababta isku arki waayeen mana is arag de waxaan u malaynayaa marka waxa weeye carruurtana way isu dhalaan ismana arkaan isma arag sababta laga rabaa de odayga maqan midhaa oo see wuxuu dhalaa marka macnaha waxna waa ka dhalaa war waa qoom aakhiraan u malaynaya ma fahmayo odayga ruuxaan buu yiraahdaa waan dhawahay xayuut waa mahadsantihiin magacaaga Safiya Saalax Aadan Safiyo barnaamijka Sweesiyo su'aalaha baa marti ku tahay su'aalaha la isweydiiyaa soo aragtaa ma sha Allah waxaan ma sha Allah aan taageero waayo hadii lagu dhaho bal magacaaga adigu aad leedahay xagee ku yaala ka waran xagee ku yaala wallahi waa su'aal aad u adag laakiin magacayga wuxuu cabirayaa yani shakhsiyadaydii iyo marka qofkii arkaayo wuxuu ugu dhahayaa magacaaga mesela Safiyo camal marka Safiyo dhahay meel ma tilmaamayo laakiin anigu iga wada shakhsi ahaan anigoo dhan taas markii lagu wacaayo markii lagu wacaayo markii laga gudbo magacaaga Safiya meel uu ku yaalo ma jira ama adiga dhexraada ha ku ahaado ha kugu dhex jiro ama meel kale maskaxiyan bas ku haysta ina magacayga ugu programsan yahay ina Safiyo leeyahay soo qof markuu ii yeerayo Safiyo ugu dhaho waa u soo jeestaa يعني واحد مسكحة كإيمان عيو والله لو هاد بقى ما سنتسويس كل حسن نور أنا سؤال كودي سؤال أدي هذا سؤال ويني أفرح سنة سؤال شو حكون هذا جيت كش عن شمبر كان جيت كفولين شمبر كان جيت كفولين
malaha والله shimbirka fakar shimbirkan geedka fuulin shimbir aan geed fuulin ma jiro shimbiru baalay wada leertooda fuulan Soomaa marka shimbirka ma hayo aan geedka fuulin magacayga Bashiir Cabdiqaadir Bashiir waxaan ku dhaho magaca Bashiir xagee ku yaala magacaaga iguma yaala laakiin la bixiyay markii lagu bixiyay oo magacii lagu walqalay magacaaga asal ahaan markii lagu bixiyay markii laga reebo xaguu ku yaala meel ku yaala ma jiro magacaaga meel kuma yaala dadka qalubtooda kaliya ku yaala marka adiga xagee kaaga yaala aniga ruuxayga qalubtu ka yaala meel kale yaala ma jiro waayahay su'aal kale aan ku weydiinaya su'aashu waxay ku leedahay hooyo iyo aabe 9 ciyaar isku dhalay walina aan is arkin sababta isku arki leeyihiin maxay tahay ma arurtaan is arkin hooyada aabaha kuwaas waa surriyooda ma la dhihi karaa magacay waxa la dhahaa Shaahid Yare haddaan su'aal ku weydiiyo soo aragtaa waan ka jawaabayaa insha Allah waxna uma arko waayahay su'aashu waxay ku leedahay magacaaga adigu aad leedahay xagee ku yaala magac adigu waa xagee ku yaala dasuwas korkeedu ku yaala wajiga ku yaala markii magacay oo yaa ku dhigay maalinta hooyada ii bixinaysay wajiga ku dhigtay maxaan ku qoratay يعني نصيب حلو waxaan dhashay waxay ahayd ma taqaanay ahada soo daraadeed waa lagu qoray ya wadnuuna dhagdhag buu yiri saawa sheegaya way su'aal baan ku weydiinaya ka waran hadii lagu dhaho magacaagu xaguu ku yaala magacaygu xagee ku yaala ba magacayga meel ku yaala aniga un baa la bixiyay أنا الله يدها أنا يقول يلا. مركب ماله كويا لو محسوسات هاي مجا أديك لو كويا. مجا عني عبد الجبار بلا لها أدون الله يبان. مبارك. مبارك وهدي أن لو كورا مجا وحقوق كويا لا. مجا كويا لا بوق كويا لا. بوق عادي حلو غرو. تبارك يا كوري. markii kan waalidka ku bixiyeen laga tago magacaaga meel kale uu ku yaar ma xasuusataan magacaaga meel kale ku yaalo ma xasuusto hay maxay istiilahay wallahi caadi waxa dhiba ma qabo way su'aal kale aabe 9 aabe iyo hooyo 9 caruur isku dhalay sababta isku arki waayeen baa laga rabaa جسرك واين جسرك واين دي ما يا سببت عيالك أنت يسقط لان سقال الموت إلى هدا أي سببت يسوي واين حكيني معناها إن سوين بلغي يا عروي بيسكون عروه هدا يسكون لنا حسكار واين وكل مغين ومرك هدي كل مقيس يسكون لنا عروه سقال عروه حسكون لنا معناها لو قف سوت تقاني بيسكون لنا أفتح وإنا سؤالك ودي سو أركتها. دمله. وياه بروح الناشيكتا مجا وحقوق يالا. مجا. حقوق يالا. مجا وحقوق يالا. أنا ويالا. أنا حاجات حاجة يالا. حاجة سيئة يالا. ويا كل جاي. واحد كل جاي. مركل لي بحياة وقف. ماذا كقطعي؟ هي. إن marka meel kale uu ku yaala ma garanayso meel ku yaala meel kale ku yaala saanteeda garanaya meel ku yaala saanteeda garanaya meel kale ku yaala su'aal kale aan ku weydiinaya in hooyo iyo aabe 9 ciyaar isku dhalay oo sababta waxa sheegtaa sababta aysan wali isku arag 9 ciyaar isku dhalay tan isku tigin bas 9 ciyaar isku dhalay hadda adaan laga rabaa شوتها 9 ciyaar isku dhaleen hooyada iyo aabaha sababta ay isku arkin ilaa hadda sheeg ma garanay taas ma garanay oo kala aan way isku sameeyaa ya way he hada shimirta qoriyada ya maad sababa hada laakiin way dabaysh arrimisa dabayl waa markii baay daahirow ina su'aal ku diiso aragta ina su'aal ku diiso aragta su'aal ma caadi ay wadi kara waxa su'aashu waxay ku leedahay magacaagu xaguu ku yaala magacaagu aniga wuxuu ku yaala Soomaaliyeed magacaagu aniga yaala xagee kaaga yaala ma aniga wuxuu iga yaala aniga
macnaha shakhsi ahaanteed ugu yaalaan maya meeshuu kugu yaal magacaagu ma noo sheegi kartaa magacaygu aniga meeshuu yaal dhalashadaydu yaal dhalashadaadu waa xagee dhalashadaydu waa gobolka Garowe gobolka Nugaal yaan leeyahay marka halkaas ku yaala waayahay su'aal kale aan ku weydiinayaa su'aashuna waxay ku leedahay hooyo iyo aabe 9 ciyaar isku dhalay sababta ilaa iyo hadda ay isku arki leeyihiin baa laga rabaa ay isku arag sababta isku arki leeyihiin taar shakhsiyaadka eebay xaq ilaahay bay isku arki leeyihiin ilaahay ma macnaha kala qarin kara isuna gelin kara ciyaar isku dhaleen hooyada iyo aabaha sababta ilaa ay isku arkmaba is arkaanba awlaadna waa isku hayaan mana is arkaan taa mid aan ka jawaabigo heedhan gaarima maxaa isleedahay ya maxaa isleedahay sagaal ciyaar ay dhaleen aabaha iyo hooyada ismana arki karaan ilaa iyo hadda now kuwaas aniga kuwa aabiyo hooyo ay amaan oo kuwa kale dad kale aabiyo hooyo u yihiin salaado inaan su'aal ku weydiiyo soo aragtaa waa isku daya waayahay magacaagu xaguu ku yaal magacaygu waxa ku yaala qalbigayga qalbiga ku ilaahay qalbiga lagu dhigay ilaahay baa u dhigay xagee kaaga dhigay marka qalbiga waa gamay anay u dhaxyeelada anu way u dhaxyeelada aduu ku dhaxyeelada ka xagee kaaga dhaxyeelada marka anu rayay hadda hoogi dhaxyeela niidi iyo qalbiga adu okay waayahay su'aal kale aan ku weydiinayaa hooyo iyo aabe 9 ciyaar isku dhalay oo ilaa hadda sababta isku arki waayeen baa laga rabaa wallahi wala taas garan way maxaa isdiidahay hadaa maskaxdaada ka shaqeeyay sagaal hal mar uga waxa way hooyo iyo aabe 9 ciyaar isku dhaleen ilaa haddana isma arag sababta isku arki waayeen baa laga rabaa taas wala way u adag waayahay magacaaga maxamed xagee ku yaala magacayga maxamed xagee ku yaala wuxuu ku yaala de qalbad ku yaala qalbad ayaa ku dhigay ilaah baa ku dhigay magacaaga adiga qalbada kugu yaala may magacayga de caadiga ah oo lagu walqalay wakaa wuxuu ku yaala maxamed xaguu ku yaala maxamed de magacay wuxuu igu yaala idhikaarkayga wakaa meel kale oo kugu yaala ma ogtahay meel kale oo kugu yaala waxa kale oo igu yaala laysinka wakaa labadaas buu igu yaala waayahay su'aal kale aan ku weydiinayaa su'aashu waxay ku leedahay hooyo iyo aabe 9 ciyaar isku dhalay oo aan wali is arag sababtu maxay tahay aan wali is arag 9 ciyaar isku dhalay hooyo aabe 9 ciyaar isku dhalay aan wali is arag hooyo aabe 9 ciyaar isku dhalay aan wali is arag intaas ma garan karaan maxaa isdiidahay arintaas ma garan karaan magacaaga ku dhawaa magacaaga maxamedow inaan su'aal ku weydiiyo soo aragtaa walaal diyaar baa waayahay su'aashu waxay ku leedahay magacaaga adiga maxamed weeye dabcan soo maahan xagii ku yaala magacay xagee ku yaala magacay walaal dee ana li dhahaa soo maahan xagee ku yaala marka hadii lagu dhaho xagee ku yaala xagee kaaga yaala adiga magac hooyo aba igu qalay weeye laga reebo inuu ku walqalaan oo hooyo aaba kula baxaan meel uu ku yaalo ma xasuusataa meel ku yaalo magac la yaqaan caadi weeye haye waka marka meel uu ku yaalo ma garanayso ma garan Saciid Cabdiraxmaan Saciidow inaan su'aal ku weydiiyo soo aragtaa waa caadi waa weydiin kartaa magacaagu xaguu ku yaala magacaagu waxa ku yaala magacaagu meel ku yaalo masaxay maxay isdiiray maxay isdiiray meeshu ku yaalo magacaagu ma garanay meeshu ku yaalo ma sixi kartaa magacaagu maxay meeshu ku yaalo Soolaan bal isku day isku day magacaaga adigu aad leedahay oo lagugu yeero hooyada ayaabaa kula baxeen xaguu ku yaala magacaygu aan u leeyahay hooyada ayaabaa la baxeen soo aqaano meel ku yaalo ma sixi karaa ilaa yaad Jaamac Cabdul Ahmed jaamacu ina su'aal ku weydiiyo soo aragtaa waa okay weydiin ka dhax su'aalaha mamiyiga iyo dhaqanka isku fiican tihiin mise su'aalaha diiniga mise su'aalaha kale oo diiniga iyo dhaqanka iyo waxna isku fiicanna waayahay bal haddaan ku dhaw ka warran magacaaga adigu aad leedahay xagee ku yaala kitaabka ku yaala kitaabka quraanka haye xagee weeye marka meesha ku yaala ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد جامع والدها waaye markii laga reebo magaca adiga jaamac baa lagu dhahaa magacaaga marka meeshu ku yaalo adigu aad leedahay ma jira macnaheedu magaca jaamac meeshu ku yaalo
kitaabku yaala soo kuma sheegin dee oka way su'aal kale ku weydiinaya su'aashaas waxay ku leedahay hooyo iyo aabe 9 ciyaal isku dhalay oo haddana aan is arag sababta isku arki waayeen calafka kala geeyay maxaa calaf caruuray bay isku dhaleen riyo isku dhaleen riyo maxaa isdiilayda anigu wax dhilaa oo ku riyooday hooyo aabe riyooday weeye aad iyo aad waan ku mahad celinayaa Suweys barnaamijkaagana waa ku xidhanahay markasta aad u mahadsantahay barnaamijku waa barnaamijka su'aalaha la isweydiiyaa marka su'aal fudud baan ku soo qabanaya magacaaga muxuu ahaa Cilmi Xasan Muuse Shalmad cilmiyo magacaaga xagee ku yaalaa magacaygu wuxuu ku yaalaa foodaydu ku yaalaa aniga fodacada la yiraahdo fodacada yaa ku dhigay fodacada la yiraahdo fodacada marka maadaama fodacada lagu magacaaga foodaydu ku yaalaa xogaa baan hadeer yara naashnaashay mooyee halkaas oo aniga magacaygu ku qorayaa su'aal kale aan ku weydiinayaa hooyo iyo aabe 9 ciyaal isku dhalay oo haddana aan is arag bal sababta isku arki waayeen baa laga rabaa 9 ciyaal hooyo iyo aabe isku dhaleen oo aan is arag way kala qaxeende hadee kala aadeen qaaradaha adduunka baa laga yaabaa waxay isku dhaleen 9 ciyaal isku dhaleen 9 ciyaal ismana arag markay wada joogeen ma sarag ciyaalkaas ciyaalkan sarag horta iyaga maya hooyada iyo aabaha caruurta isku dhalay baan sarag ciyaalkii hooyada caruurta isku dhaleen baan sarag markay dhasheen markay uurka ku jireen hooyada iyo aabaha isma arag wali isma aysan hooyo aabe saashaasi hooyo aabe isma arag 9 ciyaal isku dhaleen ismana arag su'aashu waxay ku leedahay magacaagu xagee ku yaalaa magacaygu wuxuu loox maxfuudka magacaygu wuxuu ku yaalaa loox maxfuudka waa tahay daawadayaal waxaan filayaa inaad daawanayseen su'aalihii aan weydiinaynay bulshada oo ka koobnaa 3 su'aalood su'aasha koowaad waxay ahayd waxaad sheegtaa hooyo iyo aabe 9 ciyaal isku dhalay isla markaasna aan wali is arag sababta isku arki waayeen taasina waxa weeye inay dadkaas labada ah hooyada iyo aabaha ay dhahan naafaka yihiin su'aasha kale labaadna waxay ahayd sheeg shimbirka aan fuulin dhirta taasina waxay ahayd xiidka shimbirka loo yaqaan su'aasha kale saddexaadna waxay ahayd sheeg magacaagu meesha ku yaalo taasna jawaabteeda waa loo المخفوض طبعا idinkuna waxaan filayaa inaad barnaamijka ka faa'iideysateen cidii su'aal qabta oo rabta in bulshada loo weydiiyo commentiga noogu qora wixii talo iyo tusaale ah barnaamijka waxaan idin la socodsiinayaa anigoo Suweys ka cayta channelka daawanaysan waa Suweys ka cayte dhinaca isku dabaridka iyo kaamirada waa Cabdiweli Gallayr inta barnaamijka xiga ku kulmi doona sidaas iyo nabaadiin